cibaadadiisa oo garta cilmigeeda ay ugu dhawaato cibaadadaasi dhinaca aqbalka ilaahay baa aqbalka haya laakiin ay sharciga waafaqdo darsigeena ama casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha buriya soomka oo aad ay u muhiim tahay inay dadweynuhu ogaadaan siiba dadka maatida ah dadka adigoo moodaya inay aqoontii leeyihiin sidaada wax badan baa haddana dadku ama ay iska mashquulsan yihiin ama goobaha cilmiga ka fog yihiin nin su-aal ii soo diro aan eegayo xalayto ismaan lahayn dadku halkaasay gaadhsiisan yihiin xagga aqoon yaraanta wuxuu uhi sheekhow markaan xaaskayga habeenkii u tago ma intoon anigoo jinaabaysan salaada soo tukadaan kadib maydhanayaa mise salaada ka hor baan maydhanayaa dee jinaabada inuu ka maydhaa ay waajib taho salaadu had iyo jeer aanay ansaxaynin isagoo de qofku jinaabo leeyahay ama masaajidkaba aanu jinaabo la tegaynin intaa inaynu casharkaa iska wada qaybsannahay baan moodayay laakiin dee dadku halkaasay taagan yihiin hala yaabin marka waxay u baahan tahay in far waaweyn loogu qoro adigu haddaad tahay qof wax garanaya dad halkaa taagan inay jiraan ogow dadka qaarkood baa waxay dhahaan su-aalihii bay su-aalo bilaa macnaa bay sheekh ku weydiinayaan oy waktigii nagaga qaadeen yaa akhi aday bilaa macno kuu tahaye daday halkan u taagan tahay baa jiro oo jinaabada salaada ma lala tegayaa maraya oo ma lagu tukanayaa markaa haddii aad adigu intan garanayso dadka aan garanayn baa muhiima in loo sheego cilmigana waxaa aada ugu sii baahan qofka jaahilka ah haddaynu kusoo dhowaano waxyaabaha lagama maarmaanka waxaa ka mid a tabyiitu niya min alleyl habeenkii qofku inuu soo niyoodo haddaanu niyoon soomkiisii waxbuu ka noqonayaa xadiid saxiixo nasaa-i warinayo nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam man lam yubayit siyaama min alleyl falaa siyaama lah qofku haddii aanu habeenkii soo niyoonin soom uma jiro maalintii waa soomka faralka ah gelinka horaa la niyoon karaa ka sunnaha ah waxaynu sixi lahay niyaduna hadallo la yidhaahdo ma aha ee waa qalbiga anniyatu maxaluha alqalbu oo waa inuu qofkii go-aamiyo un aroorta inuu soomi doono markuu cashaynayo suxuuranayo afurayo intaasaa ku filan salaadda markaad halkan iminkaysa soo taagtay dee laguma soo riixin oo turanturo kumaad imanine qasad baad ku timi iyo inaad salaad tukata niyaduna waaba intaaba marka halkaa waxaan xusaynaa daliil ma laha nawaytu sooma qadin can adaain fardi fiiladaa dheer ee dad badani ay uba qabaanba haddaanu intaa odhanin inaanu soomkiisii ansaxayn arrinta labaad waxaa shardiya inuu qofku iska daayo wixii soomka ka jebinayo kuwan soo socdaynu sheegi doonaa laga bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa intay qoraxdu dem odhanayso habeenku ilaa uu imanayo arrintaasina waa waajib weeye sidaa aayadda aynu marar badan akhriyayna ay sheegayso uma wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajri uma atimu siyaama ila alleyl soomka bilaaba marka waagu dilaaco ilaa gabalku intuu dhacayo soomka wada ayaa ilaahay ui subxaana wa tacaala waxyaabaha burinaya waxaa kow ka ah galmada hadduu qofku xaaskiisa galmo u sameeyo iyada oo ay sooman yihiin labadoodaba wuu ka burayaa inay soo qalleeyaanna waa waajib inay toobad keenaanna waa waajib 2 bilood inay soo soomaanna waa waajib labadoodaba waa lagu leeyahay sida jumhuurtu qabaan hadday labadooduba sooman yihiin waxaa xaaraana inuu soomka sii jabiyo si uu galmo u sameeyo ilaahay wuu ku ogyahay oo wuu ku arkaya ina rabbaka labilmirsaad ilaahay dhabagal buu kugu jiraa waxaad u jeedo wuu ogyahay marka arrintaasina waa dembi weyn nabiguna calayhi salaatu wasalaam ninkii uu la hadlayay wuxuu ku yihi qoor xore haddaad kari weydana 2 bilood oo xidhiidha soon haddaad kari weydana 60 miskiin wax sii marka qoortii imika ma jirta la xoreynayay labada arrimood oo kale un weyn waxyaabaha soomka ka jabinaya waxaa ka mid ah manidoo qofku iska keeno biyaha taranka oo isagu qasad uu leeyahay uu iskaga keeno noocay doonaysaba ha ahaato ficil uu isagu leeyahay dhinacuu doonayaba ha kaga soo wareego rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu maaragtay taa ka hadlayey waxa uu xusay qofku
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل حديث البخاري حديث القدس waxyaabo ilaahay qofka ku amaanay waxa kamida shahwadiisa inuu ilaahay daraadii uga tagayo marka hadaanu ilaahay daraadii uga tagin soomkiisii waa kaasoo uu ka jabay saadaradeed qofka haduu xaaskii la ciyaaro isagu marka sabab uu leeyahay saa ay kaga yimaadaan qallihi baa lagu leeyahay isaga waa maalinkaas oo qalaayeen toobad keeno hadii qofku uu ishubo waa samayn karaa dhunkasho iyo la dhaqan iyo ciyaar iyo waxa laakiin inta badan man xaama xawla alxima yushiku an yaqa fihi qofka seeraha ku warwareega khatar wuxuu ugu sugan yahay inuu ku dhaco baasha nafina waa daciif waxay gaari kartaa meel aan qabanayn marka albaabku haynoo kala xidhnaado halka qolo waliba gaarkeeda u khalaaweynaysa عائشة waxay leedahay kaana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu wa huwa saa'im wa yubashiru wa huwa saa'im walakinahu kaana amlakukum liirbi Bukhari Muslim baa wariyay waxaan taa ku jirin waxaan loo yaqaan ixtiraamka duhurkii saxdo qofka biyo taranka ka yimaadaan soomkiisa waxba ma noqonayo waxa burinayo saddexaad cunista iyo cabitaanka qofku isaga oo u kasaya oo aan macnaha la qasbin oo aan isilowsanayn isagana soomkiisa waa jabaya sida ilaahayba aayada de cunitaanka joojiya waagu markuu bariyo hadii laakiin arintu ay u dhacday isagoo aan u kasaynin soomkiisa waxba ma noqonayo qofka cuna ee caba isagoo isilowsan soomkiisa ha dhamaystira buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa raashin iyo sharaab siiyo jaanis buu ka faa'iideystay lagulama xisaabtamayo qofka wixii aanu awoodiisa ka baxsan waxyaabaha qofka soomka ka jabinaya waxa kamid ah hadii uu dabiyi sanka iskaga shubo xadiidkii laqiid waxa uu nabigu ku yiri wabaaliq fi istishaaq illa an takuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane biyaha sanka fiifdhe si aad xagga sare u soo maydho markaad weysiisanayso laakiin qofku markuu sooman yahay biyaha fiif oran maayo intaas ku buu maydhaya marka wixii la oran jiray sanko biyaha lagu shubo iyo afkiyo lagu shubo inay isku mid yihiin ba halka laga faa'iideysanaya oo laga qaadanaya culimadu waxay leeyihiin waxa la mid ah cunitaankan iyo cabitaankan wixii qofka tamar kordhinaya dhiigii uu isku shubay glucose uu qaatay dawooyinkii faytamiinka ahaa qofka xoojinaya tamartiisa cunitaan u xisaabsan yihiin culimada qaarkood waxay ka dhigaan waxyaabaha buriya soomka inuu qofkii istoobo iskuma waafaqsana laakiin waa madhabaha qaarkood marka inaad iska daysaa fiican oo aanad dhiig iska shubin oo aanad istoobin khuruujan min alkhilaaf adigoo khilaafka ka baxaya waxa soomkii toddobaad oo jabinaya inuu ka soo baxo ruuxii dumarka ahayd dhiigii dhalmada ama caadada way umushay hooyadii soomanaydba iyadoo laba kalifin oo heerka markay taagan tahay inay iska afurto ay tahay ila hooyo uur lahoo u dhawaatay inay dhasho waa la garan karayaa dhibkeedu halku gaarsiisan yahay sharcigu kuma kalifin inay soonto ee waa inay iska cuntay soo qalayso laakiin hadday dhacdaba in dhiigii dhalmadu ka soo baxo ama ilmahaba uu ka soo horeynayay soomkeedii wuu jabaya inay soontaana ma ansaxayo sidoo kale dhiigii caadaduna waa la mid daqiiqadii maalinka u dambeeyay shantii mirre u dambeeyay maalinkii ay soo soomanayd ayuu dhiigii caadadu ka yimi qad badala sawmuha soomkeedii waa jabay nabigu calayhi salaatu wasalaam dumarka markuu qancinayo wuxuu lahaa alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum xadiidkii saxiixu lbukhaari ku sugnaa nuqsaanu diin waxaa ka mid ah ninkii isagiyo soomkii wadun bay gabadhii kolba uu ka jabaya waqti uu cibaado ku qaadan karaya iyadii ka maqan marka kolka ay dhiigga dhalmadu ka socdo inaanay dhiigga dhalmada iyo ka caadadu inaanay soomaynin oo aanay salaadana tukanayn buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xaydkiina wuxuu la mid nifaaskii macnaha waxa iyaduna la mid oo sideedaad oo soomkii ka jabinaya qofka inuu go'aansado inuu iska afro niyatul fitr saacada laga bilaabo waabana furay buu dhaano waa jabinayaaba soomka hala ii soo dhigo qasad uu go'aan buu ku qaatay dee niyadiisii buu joojiyay
niyadiisii hore soomka u soo socotay wuu buriyey waa rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam inama al-a'malu bin-niyat amalka waxa lagu tixgeliyaa inama sihhatu al-a'mali manudatu bin-niyat amalku niyad buu ku ansaxaa niyadii waa kan salgareeyay meeshuu ka saaray soomkiisi waa kaga jabaya soomku waxyaabuhu kaga jabaya waxa kamida ilaahay baynu ka magan galnay qofkii inuu gaaloobaba diintu caayay ilaahay buu caayay rasuulku caayay afka intuu kala qaaday buu edab darro weyn oo intaa la egsameeyay qul abillahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun qad kafartum laa ta'tadhiruu qad kafartum ba'da iimaanikum ilaahay wuxuu ma ilaahay ya aayadihiisa rasuulkiisa ku dheeldheelaysa markaasaa leedihiin waanu iska kaftamaynaa uma aanan ka saynin waa gaalowdeen buu ilaahay waxba cudur daaranina waa qof ku jeesay rasuulka iyo ilaahay iyo aayadiisa ku afka kala qaado caayna maxaad u maraysaa uu ka sii weyn yahay idan waxa ridada la yiraahdo ama islaamka laga noqdo laga baxo qowl iyo ficil iyo qalbi mid kastaba ha ahaatee amalka uu qofku ku dhex jiro way kala goysaa ilaahay baa ilaa in ashrakta la yahbatanna amalu hadaad gaalnimo ku dhacdo cidda doonaysaba hawo amalkaagii soo socday wuu burayaa oo wuu jabayaa waxyaabaha soo dhan waxay kamid yihiin waxyaabaha mudilaadka loo yaqaan ee soomka jabiya marka qofku waa inuu kala garto wixii soomka jabinaya iyo wixii aan jabinaynin iyo wixii sunnah iyo wixii falala waxaynu arki doonaa waxyaabo dadka qaarkood ay dareemaan ama ay u maleeyaan inuu soomka ka jabinayo laakiin ana waxba yeelaynin 10 iyo cadba waa la yaryaraystaa si aan loogu merganine maanta 8 qodob oo cagafta burisa ama cagafta dumisa soomka 8 saad liqaysaa insha Allah taala waanaad ka ilaalinaysaa soomka wixii kale aan waxba yeelaynin iyo sunnayaashiisana duruusta dambe aynu ku qaadan doonaa insha Allah وهذا ما أقوله وأستغفر الله أي نسنا سو دعينا ضدك ولاله ميل والبا جوغا marka u ducaysan idinka ducaysan qofka walaalkii oo maqan u duceeyay buu nabigu yiri la qofka Soomaaliyeed duca la aqbalaa buu leeyahay marka Soomaaliya markuu afurayaba malag ba agtaagana wuxuu leeyahay ilaahay ducadaha ka aqbala adiguna intaad walaalka ugu ducaysay in la eg baad leedahay marka taasina waa fursad iyo chance haday tay qoladan iclaamka wax inaga baahinaysay inaga dhamaanteen iyo dadkeena maqan iyo ummadda islaamka dhibku haysta iyo macnaha hankeenu uu yaraanay kaligii haan laha noqonin adiguna hantaada qura ha ku shubanin ducada dadkoo dhan wada gaarsiin la wax lacag oo kaaga baxaysa ma jirtee waa erayo kooban oo ikhlaas wato ilaahay inuu la hor fariisano marka aynu soo burburna ducada jazakumullahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان